sidee buu qofku wax isku bari karaa wax isbaridda ama self study-ga muhiimaddu leeyahay maxay tahay iyo sidee loo joogtayn karaa aqoon oo dhami noloshaada halka aad taagan tahay inaad horumar samayso oo aad kor uga dhaqaaqdo bay kugu soo kordhisaa markaad qof tahay markaad bulsho tahayna waa sidaas la mid ah xaaladda aad ku sugan tahay xaalad ka fiican inaad gaadhibeen ay waxbarasho keentay waa maxsuulkii ummadda aqoonta iyo wax akhriska iyo maaragtay xoogga saar inay nidaamyo iyo dowlado iyo maaragtay dalal horumarsan ay dhisteen aqoonta aad doonaysid inaad siday tahay u baratid waa inaad taqaano aqoonta ayaa loo daba fadhiistaa waa wax yar oo la joogteeyo ayaa ka wanaagsan 100 jeer wax weyn intaad hal mar samaysaad inaad ka boodo waana mushkilad inagayna qabsata ka Soomaali ahaan in haysata ummaddeena ugu horeyn waxaan jeclahay halkan inaan uga mahadnaqo bahda maamulka xaruntan iyo maktabadda Nuur ee xaafadda Sheekh Nuur Hargeysa maxamed iyo agaasimaha iyo tiimka oo dhanba inay kulankan inoo soo agaasimeen waxa kaloon u mahadnaqayaa intii kulankan loogu yeeray ee halkan fadhida ee ka soo qayb gashay idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin ee waqtiga soo bixisay intaan mawduuca u gelin aqalkan doonaya inaan saddex xeer yiraahdo kadibna mawduuca galo horta dhaqanka caaqil waa nidaamka dawladeed iyo bulshada leenahay mid kamid ah marka mar kasta oo dad yar oo waaqici iyo waayihii dadka ku xiran oo fahamsan oo magaaladii iyo maaragtay iyo nolosheedii fahamsan ay galaan oo mar kasta oo cinda matalasa ay jirto laakiin haddaad inta xasuusnaataan oo mar walba aan matashaan haddii la yiraahdo marka waan ku faraxsanahay inaad tahay caaqil xaafadda oo dhan oo caaqil hayb gaar ah oo aan isxigsiinayn waxa laga yaabaa in reer gaar ah ama cid gaar laga yaabaa inaad ku laakiin inaad oday xaafadeed noqoto wadanta xaafadda ka shaqeyso horta marka ugu horeysa waan kugu bogaadinayaa marka labaadna waan kugu bogaadinayaa fikirka aad la wadaagtay ee dhalinyarada aad leedahay waa laynoo iman doonaa dadka waxay noo soo doonanayaan in wax qabad ku xidhno waa faham muhiima oo ay tahay maaragtay inaad hormood u noqotaan marka magaalada la joogo intii meel wada degan baa isku dana wadada idin wada dana iskuulka idin wada dana waxaas ay wada dana marka taana inaad ku hogaamiso xaafadda iyana waan kugu bogaadinayaa qodobka kale muwaadinimada iyo maaragtay iyo dul istaagtay iyadana oo qodob weyn oo iyadana runtii bogaadinteeda la marka intaasaan aan ku dhaafaya iyada mawduuceenu sida maxamed sheegay wax isbaridda ama self study-ga muhiimaddu leeyahay maxay tahay iyo sidee loo joogtayn karaa waxaan doonayaa markaa inaad ku tala gashaan inaynu wada sheekaysanayno anigu wax kamid ah baan sheegi doonaa dhammaantiin wada arday baynu nahay oo kala faa'iideysanaynaa markaan soo jeediyo kadib idinkuna wixii su'aalo iyo fikrad iyo aragti aad qabtaan inay la wadaagtaan waxaan isku dayi doonaa maadaama barnaamijku xoogay waqtigiisa uu inagu yar dheeraaday macnaha xilligeenu bilaabaynay oo sababaha farsame ay noo sheegay maamulku ay jireen inaan soo koobno haddii la yidhaahdo wax isbaridda intaynaan u tegin horta ujeeddada ama wax maxsuulka ka soo baxay in wax la barto ama adigoo isbar ama cidaha kugu khasabtee waa aqoontu maxay macno leedahay marka horta intaynaan wax isbaridda ba tegin oo maxsuulkii ka imanaya waxbarashada aqoontu maxay macno leedahay aslan su-aashaas waxaa laga yaabaa in midba si ay maaragtay uu dhinaca uu ka eego laakiin si kooban waxaynu odhan karnaa aqoontu laba heerba markaad heer qofeed joogtid aad adiga tahay iyo markaad heer bulsho ama qaran joogtid labadaba si isku midaba wax uga tartay aqoontaasina waxa kaliya keenta wax weeye horumar qofeed ama bulsho halka aad taagan tahay aqoonta aad leedahay haddaad ka kobcisid oo aqoon intaa ka badan aad heshid aqoon markaan leeyahay maskaxdiina ku soo koobina uun teeni waxbarashadii formalka aqoontu way badantay dugsigii aad tagaysaa ka mid ah tii kale ee aan toos ahayn baa ka mid ah xirfadaad leedahay baa ka mid ah waayo aragnimo aad nolol aad soo martay marka aqoonta uu inoo sheegay aqalku aqoon waxa uu soo bartay muhiimadda meelna kuma dhigan muwaadinimada muhiimaddeeda marka aqoon oo dhan isku wada dar meesha doontana ka soo istaag laakiin aqoon oo dhami noloshaada halka aad taagan tahay inaad horumar samayso oo aad kor uga dhaqaaqdid bay kugu soo kordhisaa markaad qof tahay
markaad bulsho tahayna waa sidaas la mid ah ama ha noqoto in dhaqaalaha haysatid dhaqaalaha ka badan aad ku samaysid ama halis kugu soo wajahnayd oo aanad ogeyn oo markaad aqoon yeelatid aad ogaatid oo ka hortagtid ama caafimaadkaaga iyo ka deegaankaaga iyo ka bulshadaada iyo ka shakhsiyadaada oo wax aanad hore ugu ogeyn aad ka heshid ha noqoto ama adeegyada kale guud ahaan nolosha xaaladda aad ku sugan tahay xaalad ka fiican inaad gaadhid bino ay waxbarashadu keentay heer qofeed markay tahay iyo heer qaranba mar walba oo bulshada ay badan tahay dadka bulshadu moogtahay waa dadka waa qofofkan isku tihin mar kasta oo ashkhaasta ay bulshadu ka kooban tahay aqoontooda iyo garashadooda iyo xogta ay hayaan iyo ogaalkoodu badan yahay waa mar kasta oo bulshadaasi ay maxay ay horumar dhaqaale iyo mid waxbarasho iyo mid ammaan iyo mid tadawur maaragtay bulsho oo guud ay yeelato wey horumarkaan sheegna waxaa ka mid ah in cimri dherer laga helo ma isleedihiin aqoonta iyo waxbarashadaasi waxay keentaa qofka in cimrigiisu dheeraado may keeni kartaa way keeni kartaa waxaana kuu tusaale ah innaga da'da celcelis ahaan qofka bulshadeena ka mida ay ku dhintaan waa imisa marka la diiwaan geliyo ya shan iyo lixdan maaha shan iyo lixdan iyo saddex iyo lixdan waa intii nebigu sheegay ummadiisu inay celcelis ahaan tahay laakiin waynu ka hooseynaa inagu ka dal ahaan soo ma shan iyo afartan ilaa konton baa lagu qiyaasay العلس life expectancy dadka waa la isku wada darayaa dadka bulsha la qaadanayaa ku 10 jir ku dhintay ku 20 ku dhintay ku 70 gaar marka la isku celceliyo konton bay noqotay marka isagoo nabigu yiri nabigu wuxuu dabeen ma sheegin Soomaa wama yantiqu an al-hawa in huwa illa wahyu yuha wuxuu 60 jir way umadeed hadana konton jir baynu ku dhimanayna waay xanuuno la garanayna u dhimanayna ku bilaa macnayna u dhimanayna arrimo dawladnimo xumo iyo hooseena waynu u dhimanayna shuruuc la'aana wax laga yaabaa shilal baynu u dhimanaynaa ammaankii aynu hagaajin karlaan laga yaabaa waxaasoo dhan waa maxay wajahan marka horumar markaynu ka bilaabayno wax yaro kooban qof shaqo helay inaan ka bilaabayno nolosha guud ee bulshada intaasay waxtar leedahay horta aqoonta mar kasta oo aqoonta dalka loo yaacayo ee loo wada tahriibay darkiis waxa ka horumareen nabadda ku dhisteen ee baasaboorada la isugu dilay qofku badaha ugu jiray dawladnimadaas ay ku dhisan tahay waa heerka aqooneed ee bulshadeeda iyo dadkeeda iyo inta uu talinaysa taasi marka waa muhiimadda horta aqoonta ay leedahay aqoonta marka qaabab kala duwan baa lagu helaa qaababkaas waxa ka mid ah qofku inuu xisbari karayso self study iskuulku waa qaab self study waa qaab to kale waa aragnimada iyo maaragtay nolol inuu qofku maaragtay lahaadway uu ku soo barto waa qaab kale intaasoo qaab baa jirta marka waxaan dul istaagaynaa self study sidee buu qofku wax isku bari karaa marka adigu wax isbaraysid waa inaad ogaatid kaliya matid mar kasta waxaan idin dadka wax isbaray ama wax bartay ama aqoon ay bataan bulshadaas ayaa aqoonteeda iyo waayaheeda iyo maaragtay garaadkeeda kordhaya iyo cilmigeeda waa mar kasta noloshii iyo dawladnimadeena iyo sideen u noolnahay iyo caafimaadkeena iyo waxbarashadeena iyo dhaqaalaheena iyo waxaasoo dhan ay maxay ay kordhaan okay self study markaynu aadna sidee loo sameeyaa waxa horta self study waa maxay wax isbarid wax weey inaad aqoon waxay doontaa hata aqoontaasi xirfadaha kala duwan ha noqoto mawaadiicda kala duwan ee cilmi baaris lagu sameeyo ha noqoto guud ahaan aqoon wax ka mid ah qofku iyadoona cid ku daba joogin oon macallin ku khasbayn oon waalid ku khasbayn oon cid kale oo bulsho ah culays ku saaran qofku inuu yiraahdo anigu waxaan doonayaa waxa inaan barto sida ay tahay aanu cabo self study markay soo koobno horta waa inta haddaba self study-gaas iyo wax isbaridda sidee loo sameeyaa sidee buu qofku wax isku bari karaa waa su'aal ballaaran laakiin waxaan isleeyahay 7 qodob oo kooban ayaynu ku soo koobi karnaa tallaabooyinka qofku u baahan yahay inuu wax isbaro ama self study u sameeyo tallaabooyinka waxaan ugu horreysiinaynaa horta waa inay jirto ujeedo maxaad wax isku baraysaa aroortii markaad soo toosto maxaad u soo toostaa horta nolosha oo dhan haddaanay ujeedo iyo waxaad u socotaa aanay jirin waxaad qabanaysaa macna male waxna ma qaban kartid marba wixii kaaga soo horbaxa wuxuu ninkii gabiye nin ambaday halkuu maray way ula ekoonayd soo ma iyo didarkii maxaa la yidhi meeshii loo riyaabo oo bannaan soo ma haddii aanad garanayn meeshaad u socoto meel kasta oo aad martaa waa wado ma ku taadiyo
so self study iyo wax isbarid markaan ka sheekeynayno marka koowaad waa inaad garanaysid ujeedo nolosha maxaad rabtaa sanadkan waxaan doonayaa inaan barto xirfad heblaay sanadkan waxaan doonayaa inaan noqdo tusaale ahaan nolosha oo dhan baad odhan kartaa waad ku salayn kartaa goolkaaga mid kooban 10 sano 5 sano soo socota doonaysid xaqiiqsan rabtaa maxaad rabtaa nolosha inaad samaysid qof weyn baad tahay xilligii lagu korinay waad dhaaftay waalidkii iyo intii kugu soo tabacaysay waa lagu sugayaa uma baahnayd inaad tahay iskuulkii waa dhameeyay jaamacadina waa iska dhameeyay oo adana waa laakiin adigu waa inaad samaysatid gool aad xaqiijisid oo ka shaqeysid waa inaad tahay waxaan doonayaa tusaalahan waxaan doonayaa inaan noqdo macalinka ugu fiican xisaabta ee ka jira wax weeyaan dalka ama magaalada waa gool sidee u samaynaysaa marka hadhow adaa markaa tallaabooyinkii bilaabay may waxaan doonayaa inaan noqdo qofka loo daba fadhiisto arrimaha tusaale ahaan digital economy-ga waxaan doonayaa inaan barto dhaqaalaha adduunka iyo forex-ka iyo lacagaha sarifka iyo waxyaalahaas inaan barto waxaan doonayaa qofka ugu fiican video editing marka la sameeyo waxaan doonayaa inaan noqdo qofka ugu fiican ee marka meel la decorate gareynayo la sameeyo loo daba fadhiisto waxaan doonayaa qofka haddii guri electricity iyo light iyo dab la gelinayo qofka aan lagaga daba waa gool ujeedda waa inay jirto waxay doontaa ha noqoto way ballaaranaysaa marka waxaan doonayaa baabuurta Toyota la yiraahdo inaan noqdo makaaniga ugu sareeya ee ka shaqeeya magaalada loo waa gool marka horta koow tallaabada koowaad wax aad ka shaqeynayso oo aad u socotaa waa inay jirto haddaanay jirin meel aad u socotaa waddo kastood martiya aroor kasta wixii ka soo horbaxa waad ka shaqeyn kartaa waa qodobka labaad markaad garanaysid waxa aad doonaysid inaad isbartid aqoonta aad doonaysid inaad siday tahay u baratid waa inaad taqaano aqoonta ayaa loo daba fadhiistaa mararka qaar adigoo doonaya inaad wax baratid mararka qaar doonaya inaad waxaa iska dhistid oo aad meel saarid baa caqabada ku qabsanaysa waxay tahay inaad wax delusion ama mu'amaraad iyo waxaan jirin oo aan macno lahayn iyo dad maaragtay aan waxaan ka sheekeynay hadii doonaan aqoon badan baa lahayn aad ku ambanaysa dadku waxa laga yaabaa inuu ku nacsiyo way dadkii saxda ahayd waxa uu daba fadhiisan lahayd maado marka inaad waqtiga aad maaragtay gelinayso mid u dhawaad gelisay inaad ogaatid horta waxaan yaalo research ku samaysid baadhid dadka wareysatid wax markaad ogaatid halka iyo cidda u sheekha waxa inaad markaa aad talaabada saddexaad u gudubtid talaabada saddexaadna ay noqoto markaa inaad koow waqti ka go'an aad u samayso xirfad heblaayo maada heblaayo waxaas aad doonaysid inaad baratay waa inaad tiraahdid maalintii waxaan gelinayaa 5 saacadood maalintii waxaan gelinayaa saacad maalintii waxaan gelinayaa 5 mir muhiim ah waqtigu waliba waxa ku caawinaya inaad mar kasta waqtiga ugu yar aad ku bilowdo waa wax yar oo la joogteeyo ayaa ka wanaagsan 100 jeer wax weyn inta hal mar samaysaad inaad ka boodo waana mushkilada inaga qabsata ka Soomaali ahaan in haysata ummadeena joogteynta waxa la yiraahdaa in aad inoo waaragto qofka wuxuu ku fiican yahay degdeg buu galayaa xagga uga baxa hadana uu xidhay chapterkii meel kale tagay marka maxaa la yiraahdaa master of all is master of none qofka wax walba ku jira waa qof aan waxba hayn meel loogu soo hagaaga aan yeelanayn marka waqtiga haduu doono ha yaraado laakiin joogtee inta maalintii iyo 10 daqiiqo oo 10 minutes kaliya ayaan sameeynaya ayaan dhiganayaa waa time baad u allocate karaysaa bishan waxaan doonayaa chapterka inaan dhameeyo sanadkan waxaan doonayaa course-ka hebla inaan dhameeyo sanadka dambe waxaan rabaa marka xilliga tahay inaan waxa dhameeyo waa adiga soo dejiyay qorshaas waa maxay waa qodobka saddexaad qodobka afraad waxbarashada aad baranaysid aad wax isbaraysid qorshe iyo istiraatiijiyad u samaysid way kala duwan yihiin qof bas si laga yaabaa inuu istiraatiijiyadaasi ay u tahay tusaale ahaan waxa kamid ah wixii aad baranaysay waxa kamid ah tusaale chapter baad dhamaysay isku day inaad cid kale u sii gudbiso markaad cid kale u sii gudbiso maxaad helaysaa waxa laga yaabaa waxaas qotadeedii iyo fahamkii aad ka haysatay in maxay oo dheeraado waa qof aan inta garanin baa jira adoo secondary waad ku jirtaa kuwa primary ga wax kamid ah sharax dhigid kala samee kooxooda wada fadhiisataan u sheeg wixii maanta aad akhriyada ka soo heshay cid kale u sii tagay waxay ka waa strategy ka caawin karta inaad maxay wixii aad bartay si fiican aad u practice karayso waxa kale oo ka caawin kara qoro notes samee intaad ma aragtay dad book akhriyaysid dad meel ka daawanaysid waxaad sameynaysid inaad notes sameeysid oo aad qoratido chapter si hadhow tixraac markaad wax doonaysid inaad ku noqotid wixii aad ugu noqonin meelihii aad calaamadsatay ay ku cadaadaan aad noteskaas ay ku anfacaan
waxa kale oo samayn kartaa oo iyaduna kamid ah waxyaalahaas cid kale la falanqeey waxaad dhiganayso waxaasaan dhigtay waxaas waa aqoon kugu soo kordhay soo maaha tusaale ahaan mawduuca chapterkaad maanta dhigatay ama weekan qof kale ood isleedahay waxaa ku fiican kaaga aqoon badan macalinkaaga nin kale saaxiibtiin qof waxaa yaqaana kala hadal kala dood la falanqee wax badan baad ka weydiinaysaa dhinacyo kale aad kasoo istaagaysaa wuu kugu duxayaa wixii marka doodaha iyo meelaha waxaa lagaga hadla mawaadiic kasta oo aad galaysid xirfad kasta oo aad baranaysid cid ka hadashay oo ka doodaysa oo ka warramaysaa jirta baadh internetka markaad ku jirtid bugaag baa ku jira youtube-yada ku jira waxaasaa ku jira doodaha kala duwan waxaa laga sameeyey mawduuc haddaad doonaysid inaad si fiican u fahamtid weliga ayaa laha doodaha iyo maaragtay debateska laga sameey doono waxaad istaagi doontaa marka dhammaan dhinacyada kala duwan ee arrintaa ku saabsan adiguna markaa dhinac baad ku qanci doontaa adigoo maaragtay sababeynaya marka doodahaas iyagana ku saabsan waxaad baranaysa baadho iyagana maaragtay xoogga saar qodobka shanaad waa cidi kuma daba joogto self studyga marka qofku waa inuu sameeyo oo ku dadaalo inuu waqtigiisa maareeyo waqtigaaga inaad maareysid markaad soo kacdo iskuulka markaynu tagin waxaa laga yaabaa dee ummadan baa tegayso iska raacaysa haddaad doontid adigoon u jeedinba ama guriga wixii waa culture iska samaysma laakiin markii self study laga hadlayo aday kugu xidhan tahay waqti marka waa inaad taqaanid saacadda aad bilaabaysid iyo xilligaad joojinaysid sidaa aan maaragtay marka hore xusayna mar walba waqti yar ku bilow waxbaha culayska maaragtay waxaa laga yaabaa naftu inay diido laakiin markaad waqti yar ku bilowdid waxaa laga yaabaa in markaa hadhow aad la qabsato oo ay marba marka dambeysa si gradual aad u koraysid marka u dambaysa haddaad heli karto cid guruuba oo aad tirahdaan aynu waxaa diyaarino aynu koorskaa dhammayno aynu xirfaddaa dhammayno aad bay u fiican waayo qofka bini aadamkaa challenge-ku hal qofna aad u doona ha noqday qof aad isla ogtihiin anu halkaasaan maraya adoo halkaasaan maraysa wax iska weydiisaan ka wada sheekeysanaysaan oo kale haddaad heli karto ama saaxiibkaaga ama cid kale oo haddaad doono marka hore inuu saaxiibka ahaado ma laakiin qof waxaa ku fiican xiriir la samayso aad ka wada hadashaan aad bay iyaduna maaragtay muhiim u tahay ugu dambeynna inaad marka adigu dareentid mas-uuliyadda cid kale inaanad maaragtay inta self discipline iyo inuu qofku isagu ismaamulaa waa sarta ugu muhiimsan ee self studyga wax isbarinta inaad ogaatid waa adigaa iskormeeraya adigaa wax isbaraya adigaa isqiimeynaya adigaa isriixaya adigaa isdhiirigelinaya marka waa inaad yeelatid qorshahaaga maalmeedka inagoo tallaabooyinkaa sare aynu sheegayno aad raacaysa taasi waa si kooban tallaabooyinka aan isleeyahay way ugu muhiimsan yihiin qofku markuu doonayo inuu wax isbaro ama self study uu sameynayo okay waxaa muhiima iyaduna aqoonta inteedii badnayd af soomaali kuma qorna ama af carabi ama hadda inta u badan laba af ingiriis bay ku qoranta luuqadana inaad xoogga saartaan waa luuqadda haddaad xoogga saartaan oo iyada lafteeda sidaa aan u sheegna self study baad iyada ka bilaabi karta intaasoo waxaa jira course intaasoo waxaa jira website qaar free yihiin yacni internetka aad isticmaalayso maalintii haddaad 10 daqiiqo 20 daqiiqo 30 qaar kula hadlayaa jira imika kula practice garaynaya waxaan la yidhahdaa artificial intelligence oo kale application is dhawaaqi kuu saxaya waxaan kuu saxaya la practice garayn kara marka luuqadda marka ugu horreysa ka bilow luuqadaada markay fiicnaato ilaan waa afkii moogta afka ay aqoontu ku qoran tahay casriga ah iyo timeka aan sheegin inteedii badneeda loo soo rogay waxa weeyaan waa taa adigoo af soomaaligaagina aan ka tegayno maaragtay aan dafirayn laakiin luuqadda ingiriisna maadaama aqoontii iyo macluumaadka ugu badnaa ku qoran yihiin iyadana xoogga saar waa kuu noqoto waxyaalaha maaragtay challengeska aad doonaysid inaad ka gudubtid waxaa kale oo aan jeclahay marka inaad muhiima marka self study laga hadlayo inuu qofku yeesho dhaqan wax akhris wax akhrisku aad buu ummaddeena ugu yiri يعني waxa laga yaabaa qofku wuxuu akhriyay waxa ku khasban yahay iskuulka uu ku dhiganayo kaliya laakiin inaad noqotid qof wax akhriyi kara oo aad xoojisid dhaqankaaga wax akhrisku muhiim wana waxyaalaha maktabadan iyo maktabadaha la mid ah ay wax weeyaan doorka ay bulshada ugu jiraan ay tahay inuu bogaadiyo way wax akhrisku يعني وموضوع قار مرة وين إنك هذا الحستاج لكن اسكت إن wax akhriskaaga xoojisid waliba xilligan aynu ku jirno waqtiga digital era iyo social media iyo reels iyo tiktok waxa laga yaabaa qofka inay psychologically ay aad dulqaadkii wax ku akhri lahaay kale ay ka bixiyaan oo waxa yar degdeg qof maanta oo dhan doonaya inuu wado oo dopamine-tiisa iyo maaragtay naftiisa waxa ay rabtay degdeg ah oo qofkii waxa weeyaan ay ku dhalinayaan marka isku day inaad samaysatid
سيجارة وقت هذا حخردي waxaad baranaysid aad doonaysid self study inaad ku samayso waqti u sameeyad ku akhriyo kartid tusaale ahaan waxaad ramaantii waxaan doonayaa one page inaan akhriyo hal book ya hal book waxa laga yaabaa inuu kula yahay laakiin hal book aad joogtaysaa ma hawlo yaraan ya marka wax akhriska samayso dhaqan wax akhris wax yar ku bilow joogtee culays isku saar page adoo book dhameeyay waa qodob muhiim ah weyn الدنيا يمكن لنا وهرو مرتوكل يعني العلسهان شنطة ضلع كم إذا كو بدنا أخريات إمساس هذا قفك سنة كو أخريات يمكن دتك إنه حلقة يبقى قفكو ما لها نرش وقفي عنا ما دتك أفريقيا بودهان ينجح حقنا ما كيا حلقة أمريكا كندا آدي أمريكا كندا والله بدأ ضلع وح آخر سكودو ومالها أوصل رئيسه وكتشروا أدونك معناها ضد كده قفك على العلس مرايك كان بوك سنة كيف أخيات تطبيتهم بوك تطبيتهم يعني كندا أنا والله مدوا تطبيتهم روش وسنا حاجة كلا قاضي مرايك يسوون شبينا قفك الروش كيسنا العلسهان وحو أخريا لبيتهم بوك سنة هندية وما ركت إيش يذكر وهر يا وحخريا واللحيتهم بوك بقفك هندي يا أخي سنة كي العلس إنجليز كوك كلام وإلى عشان يتوان معناه ذلك كان شيء إنه هو ما حيا متشي سبعين ده مصبر باور ده وحنده شاينا كلام والله متسقون شاينا توم بوكوي توم بوكوي قفك شاينيس وآخرية سنة مركا وحوي معناها ومحصول شيء مدة قوانته وآخرسك يماركتي حوق صار inay nidaamyo iyo dawlado iyo maaragtay dalal horumarsan ay dhistaan marka barigi hore si kooban marka waxa jiri jiray iyaguna caqabado xagga wax akhriska oo kala jiri jiray barigi hore innaga iyo meelaha kale salaam nabi muxuu ku lahaa alayhi salaatu wasalaam saxaabada aqoonta raadsida macaajaynaha dad u tagaysan Soomaa udlub al-ilm walaw fi sin bah ya jayna maxaa laga doonayay aqoon baa Soomaa resource meelaha nabi joogay meel wax laga akhriyo ma jirin dad aqoonyahan oo badan ma jirin laakiin China markaa wuxuu ahaa civilizational state dawlad qadiim ah oo gabowday oo aqoon lagu tuumayo tagu lahaa ka soo bartay bariga hore markaa caqabad waxaa jirtay resource mu jirin hargeyso kale markaa waxa jiri jiray bariga hore laba maktabadood oo kaliya halka rugta kutubta ayma saldhigga laga dhigay iyo taa masaarida ee madaxtooyada ku dhow labadaas oo kaliya jiri jiray marka caqabad maxaa jirtay labada lafteeda inta gaarisaana way yaray buugaagta yaalayna waxa laga yaabaa inaan ku filnaan kan reerkiisoo kale marka bariga dadka mushkiladu ma ahayn iyo commitment-kooda iyo ka go'naanshaha aqoonta lafteeda qaliilahay casrigan imika aynu noolna way isrogtay one click ba buugga u dambeeyay hada la soo daabacay aad ku heli kartaa mobilkaaga maktabada intii ka badan magaalada way ku yaalaan intaasoo khabiir oo aad ma aragtay wax weydiin karto oo dunida qof walba waxa ugu fiican aad YouTube-kiisa ama website-yada aad ka heli kartaan way jiraan laakiin doonistii dadka way waxay imka maqan way shirkad Soomaa marka hore maxaa jirin resources baan jirin aqabadaan jirin wata qofka lagu leeyahay uu taabarayo in wax soo barto meel uu tagaya bil sheekh uu raadsanaya kitaab hebel ba meel loogu sheego uu tagaya waxa soo dhan maxay ahayd qof self study sameeyo wax isbarayo oo doonayo maantana inaga iyadoo ma aragtay internetka jaban ee aynu haysano aad aragtay mobilada aynu haysano guriyihii lagu wada haysto aqoonteeda ku jirto caqabad waxay tahay in qofkii uu rabo inuu aqoon sameeyo barto marka culture-kaasna talaabooyinka aynu sheegnay aynu ku bedeli karnaa oo ay ugu horeyso ujeedada inaad yeelato qof markuu ujeedo yeesho waxaan kaloo dhamin way raacay motivation-ka ugu weyn dhiirigelinta ugu weyn qofku yeelan karo waa inuu nolosha macnaha uu joogay waxa uu ka shaqeynayo inta uu nool yahay maxay noloshana taraysa aakhirana taraysa u garanay marka koow ka doonaysid noloshaadii inaad ka hadashid waa inaad goolkeeda samaysid kadib baa marka waxaan kala soo raaci doona iyaduna ma aragtay digital kana sidaan xuseen ka faa'iideyso waliba wax akhriska la xoojiyo waxa laga yaabaa dadku inta badan inay aad u xoojiyaan xagga daawashada waa okay way fiican tahay laakiin sidoo kale xagga akhrin inta soo website course free ku jira waxaad rabtid markaad qeexatid
website ciida ka badan ma Coursera ma Udemy ma Google Courses ba ma maxaa la yiraahdaa Khan Academy ba يعني كواحد time كان Soomaali ku baxay intaas oo course ama YouTube kiba oo waxa ku jira intaas oo course oo asbari kartid oo xirfadaha aad rabtid marka in qofku uu digital kan uga faa'iideysto internetka adduunka ma arag Afrika waxaan leeyahay internetada ugu jaban ku jirna afarta dal mise shanta dal Afrika ugu internetka jaban ku jirna waxa laga yaabaa qofku installer inuu course inuu ma aragtay wax ku dhow ku dejsan karo ku daawan karo suuqada PDF yada ku jira aad soo daabacan karto si khafiif ah soo daabacan karto hadhow steps kan sheegnay aad raaci kartid self study marka hal shay kan jeclaan aan ku soo gabagabeeyo aad maqasheen nin weyn oo waxa jira cilmiga naxwaha loo daba fadhiisto ya Amar ibn Usama Sibawayh shakhs Sibawayh wuxuu qoray buug la yiraahdo al-kitab oo ka hadla naxwaha Carabiga waa dadka aan laga daba dhafan way marka naxwaha laga hadlo ugu waaweyn ku jira ninkaasi ma baran kuma baran formal education uu tagay iyo school iyo course iyo college xamaa basru degana halka hada wax weeye de Persia buu soo asalkiisa Iran buu ahaa basru degana marka wuxuu darsay afka dadka reebaadiyaha ah luqadooda gabayadooda sida u sameeyeen sida u dhiseen wixii uu daba galay doodo waaweyn ba ka dhicay marka basro bariga ma aragtay xarumahan oo kale iyo waxyaalaha keenay waxa kamid ah dadka intellectual inta isugu yimaadaan in laga doodo oo aniga markii dhoweydna aan ku sii doodaha oo kale wax badan baad kala soo baxaysaa doodaha iyo fagaarayaasha iyo dadka aqoonyahanka ee badan ee doodaya gabayadii jiray reemiga oo inta badan aad iyo aad waxa weeyaan uu darsay waxyaalahaas wuxuu ka soo saaray kitaabkan naxwaha la yiraahdo al-kitab self study aan ku sameeyay maanta waa la dhigaa meel kasta lagu dhigaa jaamacada lagu dhigtaa masaajidada lagu dhigtaa waxaana ahayd wuxuu ku sameeyay marka self study marka waxaan jecelahay inta wixii ka dambeeyay inaan xaqiina ma aragtay aan u soo wareejiyo inaas uma jeclanahay inaan idin wadaago talaabooyinka ka kooban wixii kale insha Allah dad su'aal qabtaana in si kooban soo tamino aad waa mahadsantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.